bismillahi raxmaan raxiim daawadayaal idilkiin waa meel walba joogtaan iyo si walba noo maqlaysaan waxaa kusoo dhawaataan wararkii ugu waaweynaya suuqa ee hadaan oo kale aad kala socotaan janalka Gold TV. maanta waxyaabaha ugu weyn aad ku dhageysan doontaan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona BBC-da waxay hadal haysaa sheekooyin aad u waaweyn oo ciyaartooy waaweyn ay ka mid yihiin oo ka mid ah Cavani, William, Llorente, golhaya Kiba, Ozil iyo Sancho ayaana ka mid ah. kooxda kubadda cagta Atletico Madrid madaxweynaheeda ninka lagu magacaabo Cristiano ayaana markaan soo jeedinaya in bisha January loo dhaqaaqo ama bisha January ay ku fashilmeen soo xirigelinta ciyaaraanka Baaqi Jaqman, Edson Cavani kaasoo ay aad u daneynayeen inay ku soo biiriyaan garoonka Wanda Metropolitano ee ka arimiso kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. madaxweynaha ayaana qorsheenaya in bisha soo aadan ee suuqa kaliisiga furmi doona inay la soo sixdaan Edson Cavani kaas oo 32 sano jirka reer Uruguay ku dhibaatoonaya cariga Faransa gaar ahaan naadiga Baaqi Jaqman. shakadaas saaka waxaa daawacaysa majalada lagu magacaabo ESPN. dhanka kalena ciyaaraanka weerarka ugu ciyaara kooxda Chelsea Tammy Abraham ayaana macquul tahay inay ku bedeshaan kooxda Chelsea Edson Cavani kaasoo iminka aad u xiiseynaysa naadiga uu hogaansamo Frank Lampard ee Chelsea waxay rabtaan Cavani inay keento garoonka Stamford Bridge si ay bedel ugu dhigto ciyaarahan Tammy Abraham. Mirror ayaana sheekadaas maanta sidaasi u daawacaysa. wararka kale ugu waaweyn maanta waxaa ka mid ah xidig reer Brazil William ninkaas oo markaan qandaraaskiisa ama qandaraas cusub ayuu qalinka ugu duugi karaa Chelsea sida ay maanta ay sheegay inkastoo ay kooxda Barcelona ay aad u baadigoobayso ciyaaryahankani. 31 jirkan ayaa macquul tahay in iskaga hayaamo balse maamulka sare ee Chelsea waxay ku qancinayaan in ay qandaraas cusub uu qalinka ugu duugo laakiin Barcelona ayaa gobolka Catalonia ugu gacan haatinaysa si ay u keento garoonka Camp Nou. ESPN ayaana sheekadan qalinka u qaadatay. isla wararka Barcelona markaa waxay rabtaa ciyaaryahanka Napoli ee u ciyaara ninka lagu magacaabo Fernando Llorente inay soo qaadato 34 sano jirkan oo hore ugu soo ciyaaray kooxaha Real Madrid ayaana ka mid ah ciyaartooyda xiiseynaysa kooxda Barcelona maadaama dhaawac muddo ugu maqnaa doono xidig reer Uruguay Luis Alberto Suarez ayaana sheekadaas maanta daawacaysa. Chelsea macalinka Frank Lampard ayaa markaan daneynaya inuu golhayo kale xil ciyaareedka soo aadan soo qaato isagoo raba xidiga reer Spanish ee Kiba oo iskaga diro kooxda maadaama uu hanaan wanaagsan ku haysan garoonka Stamford Bridge wuxuuna rabaa golhayo cusub inuu ku soo diro shaxda kooxda kubadda cagta Chelsea. Express ayaana maanta sheekadaasi daawacaysa. ciyaaryahanka reer Germany ee Mesut Ozil ayaana macquul tahay inuu iskaga hayaamo kooxda Arsenal isagoona xil ciyaareedka soo aadan oo la ka ciyaari karo horyaalada kala duwan. Mikel Arteta ayaana soo jeedinaya inuu ciyaaraankan iskaga hayaamo kooxda kubadda cagta Arsenal maadaama hore uu doonayay inuu ka tago kooxda kubadda cagta Arsenal. Mirror ayaana saaka sheekadaasi daawacaysa. Liverpool ayaa markaa la soo sixan karta ciyaaraanka Borussia Dortmund Jadon Sancho 19 sano jirkan oo bandhiga cajiibka ku qaadanaya horyaalka Bundesliga dalka Germany. waxay dagaal adag kala kulmaysaa kooxaha Chelsea iyo kooxda Real Madrid oo aad u xiiseynaya ciyaaraanka reer England ee Jadon Sancho laakiin Express ayaa maanta soo xiganaysa in Liverpool ay wada xaajada la sameyn doonto naadiga Borussia Dortmund. wararka ugu waaweyn suuqa ayna dhageystayaal kuwaasi ahaayeen.